sheekh usuuliyo waa wiilka weydiinaya su'aasha tiktok dhanka followerska waagar marka sheekhow ilaa ay hadda 100k followers wala gaarsiilaya haye marka dadku ay daawanayaan loof isiimayaan followers oo dhimayaan tiktok kuween canab iyo kalkic ma dhaha ayada shidano qatar ma banaano su-aasha horeyso oo odigeyga ma dhihi karaa aabe anigana maama ma dhihi karaa diinta maxay ka qabtaa assalaamu calaykum wacan saaxiibada sharafta leh maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij kale oo ku saabsan su'aalaha sida tooska ah loo weydiiyo sheekh usuuli saaxiibayaal barnaamijkan ayaa waxaan doonayaa inaan u kala qaado laba qaybood qayb waxay tahay dad sheekha ku jeesjeesaya oo hadalladiisa ama muuqaaladiisa inay jarjaraan maxaa la yidhahdaa soo dhigaya baraha bulshada si dadka u marin habaabiyaan amaba ay uga sameeyaan waxyaaba fanni ah iyo dad si su'aalo maxaa la yidhahdaa daacad ah u weydiinaya sheekha saaxiibayaal marka hore bal waxaan idin tusinayaa muuqaal ka mida muuqaalada la soo dhigay barta tiktok ah kaasi uu soo dhigay wiil Soomaaliyeed isaga oo soo jarjaray sheekha codkiisa isla markaasina saaray su'aalo been abuur ah iyo waliba jawaabo been abuur ah iyo dadka sida ay uga falceliyeen kadibna waxaan idin la wadaagi doonaa su'aalo muhiim ah oo sheekha la weydiiyay iyo qaabka uu uga jawaabay iyo waliba digniin uu u diray dadka muuqaaladiisa intay qaataan edit gareynaya kadibna dadka marin habaabinaya saaxiibayaal bal marka hore aan isla daawano muuqaalkan kadibna waxaan idin tusi doonaa dadka muuqaalkan maxaa la yidhahdaa ka falceliya iyo qaabka waliba ay uga falceliyeen sheekh usuuliyo waa wiilkii ku weydiinaya su'aasha tiktok dhanka followerska waagar marka sheekhow ilaa ay hadda 100k followers wala gaarsiilaya haye marka dadku ay daawanayaan loof isiimayaan followers oo dhimayaan tiktok kuween canab iyo kalkic ma dhaha ayada shidano qatar ma banaano kuween canab la'aanteed wax kala socay malmid saxaabana dhahay shood awdi samay wareeg booday way ku booday hadda sheekhow maxaa sameeyaa marka ii sheeg hadda maxaa ka qaban karnaa anaga hadda ninka ugu boodo adaab dhoos way ugu boodaa tirbe saaxiibayaal sidaad aragtaanba muuqaalkan waa muuqaal la edit gareeyay isla markaasina la soo jarjaray oo aad loo soo habeeyay sidaasna waxaa loo soo sameeyay in dadka laga qosliyo taasina runtii waa jees lagu jeesjeesayo culimada iyo waliba diinta saaxiibayaal muuqaalkan ayaa waxaan rabaa inaan idin tuso bal inta qof ee ka falceliyay muuqaalkan iyo qaabka ay uga falceliyeen saaxiibayaal muuqaalkan sidaad aragtaanba waxaa loof saaray amaba ka helay 14,000 in ka badan waxaana comments ka soo bixiyay 494 ruux halka 704 ruux ay sheergareeyeen aan idin xasuusiyay yarkan ma aha yarka muuqaalka soo dhigay laakiin waa mid matalay oo intaas oo loof ah ku helay muuqaalkan saaxiibayaal waxaan rabaa inaan isla akhrino bal commentiyada dadka ay ka bixiyeen muuqaalkan runtii ma jiro amaba aad ayuu u yaryahay qof maxaa la yidhahdaa ka xumaaday waxaan jeesjeeskan loo geysanayo culimada maxaa la yidhahdaa qof walbana qosol iyo wax lagu qoslo ayuu ka dhigtay arrintan bal aan isla akhrino commentiyada dadka qaar saaxiibayaal sidaad aragtaanba dadka intooda badan muuqaalka waxay u qaateen amaba ka dhigteen wax iska fanni ah oo lagu qoslo qaarkoodna waxayba rumaysan yihiin sheekha in su'aalahan si sax ah loo weydiiyey isla markaasna uu sida uga jawaabay saaxiibayaal qaybtan hore haddii halkan aan ku soo koobo waxaan rabaa inaan idinla wadaago bal su'aalo la weydiiyey sheekha oo muhiim ahaa iyo qaabka uu uga jawaabay bal aan isla dhegaysano ayagana su-aasha horeyso oo odigeyga ma dhihi karaa aabe anigana maama ma dhihi karaa diinta maxay ka qabtaa saaxiibayaal su'aalaha saxda ah ee sheekha la weydiinayo runtii waxaa ka mid ah su'aashan oo kale markii aad joogto wadamada qaar waxaad arkaysaa dadka luqadahooda inay kala duwan yihiin tusaale ahaan marka aad joogto wadamadan ku hadla Kiswahiliga oo kale
qofka dumarka ah markii ay kaa weyn tahay amaba aa xushmaynayso waxaa loogu yeeraa maama qofka haddii qof raga uu yahana waxaa loogu yeeraa baaba marka gabadhan su-aal sidaas oo kale la mid ah ayay sheikha waxay weydiisay xaajigayga ma ugu yeeri karaa baaba amaba aabe asna ma iigu yeeri karaa maama bal sheikha ayaa waxa uga jawaabay su-aasheeda sidan nacam kinaayo ahaan waa ku dhihi karaa laakiin hadduu ula jeedo aabba iyo kelimada oo raxmada ah waa bannaan tahay qofku inuu isticmaalo laakiin bacdi culamaa waxay yidhahen waa karaahiyo maxaa yeelay waa ikhtilaata nasabaan ka dhalan kara beri aabba hadduu ku yidhaha qofkan dadka la maqli karo laakiin hadday tahay min baaba maxaba hadday tahay laa ba'sa insha allah saaxib yaal waxaan rajaynayaa su-aashan jawaabteeda inaad fahanteen sheekh waxa uu yidhi haddii aad maxabo amaba kalgacayl iyo wax lamid ah aad ula jeedo waa caadi oo waad isticmaali kartaa wax dhibaato ahna ma laha su-aal kale oo muhiim ahayd oo sheekha la weydiiyey ayaa waxay u dhacaysay sida tan asalaamu calaykum sheekh wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh su-aashaa ku weydiinaya waxaa qof muslin ah ma ka shaqey karaa kaniisad dhanka nadaafadda ma dembi bay ku tahay mase waa caadi saaxib yaal runtii su-aashan oo kale waa su-aal aad muhiim u ah dadka ku nool soomaaliya amaba afrikaba guud ahaan waxaa laga yaabaa wax la yaab ah inay ku noqoto su-aashan sheekha la weydiiyo laakiin dadka yurub ku nool ama wadamadan kale ee reer galbeedka su-aashan aad ayay muhiim ugu tahay waayo arrimahan oo kale dad fara badan ayay ku dhacday amaba soo martay arrimo amaba shaqo nuucan ah bal sheekha jawaabtiisa aan wada dhegeysano nacam atacaawun غayr mubaashir way mubaashir ma aha ma wanaagsano baaba karaahiya ku jirta laakiin hadduu ka shaqeeyo waa ka shaqayn karaa oo waxnaha hadduu arrimaha sanamka ahayn oo ama najaar uu yahay ama albaabada samaynayo atacaawun غayr mubaashir maxaa yeelay waxyaabo badana lagu kaniisada inkastoo cibaado ay tahay haddana waxyaabaha qaar loo isticmaali kara wey laakiin waxaan kula talinayaa inuu qofka uu ka shaqeyn maxaa yeelay dadkeenan yurub jooga diintooda walba meel fiican ma jirin marka inay ku ta'athuraan oo dhow raad ku reebaan saas daraaddeed waxaan leeyahay iyuu ka shaqeyn qofka shaqo kale ka raasad insha allah saaxib yaal sida aad wada fahmaysaanba sheekha waxa uu yidhi in laga shaqeeyo kaniisad amaba la xaaqo amaba nadaafadeeda laga shaqeeyo ma aha xaaraam laakiin waxa uu yidhi waa laga fiican yahay oo waa karaahiyo waxaa laga yaabaa hadhow inay saameyn kugu yeelato waxa uu kaloo sheegay haddii shaqada aysan ahayn mid sanam amaba waxyaabaha gaalada ay caabudaan aan la samayneyn ay keliya xaaqitaan tahay in laga shaqayn karo laakiin waxa uu ku taliyey in maxaa la yidhahdaa qofka shaqadaas mid ka habboon uu raadsado inay u wanaagsan tahay saaxib yaal su-aal kale oo aan doonaya inaan kusoo gabagabeeyo islamarkaana aad muhiim u ah oo sheekha la weydiiyey ayaa waxay u dhacaysay sida tan sheekh waxaan ku weydiinayaa su-aalan qabaal haye su-aasha waxay tahay annagoo badan oo rag badan waxaan ka shaqeynaa baabuur la wadaayo oo magaalo ka magaalo 400 kilomitir oo waqtigu yar yahay xilliga winterka waxaa soo gelaya salaadaha duhurka iyo casirka oo kaleeto hoosta iska soo gelayaan ragga qaar marka salaada xoogo way nagu adkaatay ragga qaar way isku bixiyaan salaada marna marka lasoo laabto oo shaqada laga soo laabto xaafadda ay yimaadaan ragga qaarna ay isku bixiyaan marka diinta maxay ka qabtaa may akhiyo safarka qofka musaafirka laba xaala kan buux qaasatan safarka oo sayrka leh safarka sayrka leh salaadaha in la jamciyo waa la baneeyey qofka hadduu soconayo maadaama aad intaasoo 400 aa sheegto oo badan tahay salaada markaad joogtiin magaalada aad joogtaan markaad joogtaan salaadiina duhurkii 4 rakacaad tukanaysaan haddaa rabtaan inaad soo hormarisaan casirkina 4 kala ku daraysaan oo markaas safarka hor ka galaysaan haddii aad laakiin aad samayn kartaan inaad duhurkii aad tukanin oo aad service iyo bare meel aan la galaa dabcan dadka safrayo 400 sano leeskama socdo service la galaa marka service waqtiga salaada oo kale casirka markay soo gasho inaad markaad bixisiin aad duhur tukanin maadaama aad safar tihiin oo laakiin markaad service gashiin 2 rakaco duhur ah markaas waa soo gaabinaysaa mar haddaa sayrka ku jirtid 2 duhur iyo 2 casir isku dar kadib maqribkii cishaana sidoo kale isku dar maqribka la soo gaabiy cishaha 2 ku dar haddaa meesha safarka aad joogtid magaalada kale laakiin haddaa magaalada aad joogtid marka salaad waa dhamaystiraysaa magaalada aad joogtid salaad waa dhamaystirayna qofkana safarka ma gelin ilaa iyo markuu shiraacdo oo safarka gal baabuurka markaa raratid oo aad bixaysid haddii salaad kugu soo gasho xaaladaas oo kale magaalada ka bixaysid ayaa 4 duhur iyo 4 casir aad tukanaysaa haddii aad service u akhri kartidna
oo dhahad hadda casirka xataa duhurka waa akhrina hadda waa akhira dib aan u dhigaya casirka ku dara hadaad tiraahid oo aad meesha serviceka u galaysaan ama istiraaxada markaas laba duhur iyo laba casir aad tukanay laakiin magaalada intaad joogtid salaadu kaamil aad tukanaysaa markaas ما شاء الله waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inaad si waadax oo fasiixa aad u fahanteen haddii aadan fahmin waxaan rabaa si yar inaad idinkugu soo koobo sheekh waxa uu yidhi haddii aad doonayso salaada inaad jamciso oo aad isku darto inta aadan bixin ka hor waxaad dukanaysaa afar oo tusaale ahaan duhurkii waxaad dukanaysaa 4 casirkan afartiisa ayaad raacinaysaa waa haddii aad joogto waa inta aadan bixin oo aad joogto magaaladaadii balse haddii aad baxdo oo wadada aad gasho oo salaada aad jamcinayso markaas waxaad dukanaysaa labo duhurkii 2 casirkiina 2 waan israacinaysaa sidoo kale maghribka salaadiisa isaga lama soo gaabiyo oo 3 ayaad dukanaysaa kadibna 2 cisha ayaad raacinaysaa laakiin haddii aad tagto magaaladaada oo aad gaarto mar walba salaada waxay noqonaysaa 4 kaliya markaad socoto ayay 2 ku noqonaysaa halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibayaal waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan saaxiibayaal culimada oo lagu jeesjeeso micnaheedu waxay tahay diinta oo lagu jeesjeeso waxaan rajaynayaa inaad ka waantoobi doontaan ama ka waantoobi doono insha